السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي قالقة ولا لهيقا دمان أدبان إذين سلامايا كسو دواذا جويس وحاوى مشكل إنبا عادي أهين وحاوى دنكيسana عادي maaha juice markaad cabaysid waxaa waaye gudaha aad fiican ugu dareemaysid marka juice oo biyo ahna ma ah waa juice adag waad aragtaan maasha Allah adeeg zaa'idna ma aha ayamaan waan iska mashquulay karaali noqda asxaabteyda qaaliga ah meel walba joogtiin soo dhawaada waa walaashiina kuwiin duniya juice-kana idin la wadaagay insha Allah waan iska mashquulay marka ila daawada waxaan aniga ka hagaajiyay insha Allah daawasho wacan waxaan haystaa qaro hal xabo soo kala jiray haaf qaro waaye qaro caafimaad ahaan aad u fiican yahay waxa kaliyo u fiican yahay wadno u fiican yahay meel walba u fiican yahay dadka sokorta qaba aad ugu fiican yahay laakiin anaga sokor ma qabna alxamdulillah qarahaas waxa waaye aad wuxuu ugu fiican yahay kaliyaha gaar ahaan marka qaro qofkii heli karo meel walba ka faa'iideysto qarakii Soomaali anaga haysan jirno kala maaha aad ku macaan laakiin waxa waa xooga ugu gararoon yahay maxumo waxaan kaloo haystaa baalkaas waxaan dhahnaa diimo aan dhahnaa kan waxa waa passion waaye marka saddexdaas shay isku darsanaya diimoga waxa zaaidiyaa dhiiga magac kale loo yaqaan laakiin magacii kale uu iga dhumay insha Allah next time markaan juice kala sameeynayo idin la soo wadaagi doonaa iyo passion-kii xaga ku haystaa intaasaan ka soo sameeyay saddexdan shay isku soo daraya waan soo shiidaa baalkan dhexdiisa sidoo eegaya waa idin tusi doonaa asagana sidoo kale qareyga soo jarjaran kadibna waan soo dhaqaa isku soo noqon doonaa qudaarta dhan waa idin tusaaya fruitka waxaan ka sameeyay fruitki waa kaas qarihii waan soo jarjaray sidaas ka soo dhigay qaraha waa iska caadi qof walba uu yaqaana passion-kan sidoo kale ayaan dhaweyd waa idin la wadaagay passion-ku waa miro dhexdiisa yar oo jaala ah laakiin baalkan uu ka yara duwan yahay sidaas waa dhexdiis hilib yar uu leeyahay miro yar oo soo bixeenin waayo oo meesha ku dhagan oo guduud ah dhiigu asna sare u qaadaa dhiiga cas uu kordhiyaa marka waa isku dhex daraaya intaba waxa mid walba vitamin gooni ah iyo wuxuu leeyahay waxtarkiisa waa gooni marka waa sharaab aad u fiican gaar ahaan ilmuhu aad ugu fiican yahay haddii aad siisiin waxa waa dhadhan yar oo wuxuu u sameynayaa yar dhanaan yar ah iyo macaan isku jiro waaye qarahan waa macaan oo biyo yar bisan ku shiidaya qaraha waa haaf hal xabo soo kala baray waaye sidaas uu egaa dhexdiis waxyaas yar oo guduud ku leeyahay laakiin miro ma aha hilib amal waaye kisto waa yar hilib qalaftu waa iska tuuraa dhexda laga baxsadaa sidaas le asna loogu sameeyaa markii juice-ka ku sameysanaysid wax kasta ku darsan kartaa laakiin kaligiis lama shiito maqaan qofka dhiig yar zaa'id dareemayo oo dhiig inuu sare u soo qaado rabo inuu shiito cabitaan ahaan ka dhigto saas ku cawaayo ma oogi ama sidiis waa lagu cuni karaa dhaxdaas laga cunaa sidiis waa lagu cuni karaa waxba ma aha asagana waxa waaye waa fruit sidiisa asagana waxa waa oo faa'iidadiisa leh marka wax waliba ilaahay waxa waa uu nasiiyay oo natural ah waxa waa faa'iido gooni ay leeyihiin faa'iido uu noo tahay intii la cuni karo intii aan la cuni karin ma la cuni karo somaha marka fruit intaasaan ka sameysanaynaa wax kale kuma daraayay meeshaas waxay qabtaan malaha balool ma aha sibo ma aha waxa waa nadiif kaliya waxa soo muuqday wixii guduudna waxa dhexda kaga jiro waa jaalo iyo guduud isku jiro waxaas guduudana arkaysiin dhiigu aad u kordhinayay dhahaan dadka dhaqaatiirta xitaa waxay ku dhahayaan isticmaal marka cabitaankeyga intaas shay bisan ka sameynaya sokor iyo biyo yar bisan ku daraax kale kuma daraay insha Allah waxa waa cabitaan aad u fiican oo fitamiino badan leh kala duwan meel walba u fiican waaye kaliya uu fiican yahay kan kale waxa fitamiin C ka helaysaa midka kalena dhiigu kordhinaya marka waa cabitaan isku dheelatiran maasha Allah ah ilmaha markaa siinaysiin ilmaha yar xitaa sanadka jiro waa la siin karaa inta hadii uu koobku caway waa qeyr koobkiisa uu shubeysa haduu koob aqoonin waxaad ku siinaysaa masaasadiisa ama jubbadiisa wixii barkaas aad u haysid aad ku siisan passion-keyga sidaas asna dhaxda ugu soo bixinaa passion-ka aad u sahlan yahay ma dhib badno waxa dhan waa sahal la deer waan dhameeyay waan soo shiidayaa markaas kadib waa idinku soo laabanaa sokor yar iyo biyo yar ku soo daraaya bas asaga qaraa waa macaan markaan soo shiido ay la arki doontiin sidoo ku soo baxo insha Allah
waka cabitaankayga sidaasuu kusoo baxay oo quruxda badan kalarkiisa waxaa waaye ma aqaan walaa sidii loo sheego kalarkan guduud zaaidna ma aha binkina ma aha sida waxaa u malaynaysaa shay oo camba ama babaay uu ku jiro kala kalar uu yeeshtay kalarkaas quruxda badan uu kusoo baxay maasha allah cabitaan aad u fiican waa dhadhankiisana wuu fiican yahay health ahaana wuu fiican yahay ha laga faa'iideysto asxaabteyda qaaliga ah ilmaha siista idinka cawa naftiina lagu casuumo waxuu diidayaba malahan marka asxaabteyda khayrka idinla jeclahay soo dhawaada channelkayga kusoo dhawaada subscribe saara sida iyo nabadgelyo